bani aadamku waxyaabaha uu ku horumaro qaar ka mid ah oo aynu ka soo dheeganayno inaynu ka soo qaadanayno diinteenna islaamka الناس كلهم يطلبون النجاح في هذه الدنيا waxyaaba aad loo hadal hayo waxa ka mid ah hebel muxuu horumar gaaray wadankaas muxuu horumar gaaray qofka maxaa u kordhay marka ma hiya asbaab النجاح waxyaabaha qofku ku horumari karo haduu qofkii horumarana ummadiina way horumaraysaa maxaa ka mid ah inagoo ku eegayna qiyaasteena diiniga ugu horeyn waa taqwa Allah ta'ala fa hiya khayru zaad Allah ka cabsiga qofku hadaan Allah ka cabsi lahayn horumar ma jiro way naftiisana uma turayo wadanka cid kale toona marka cabsida Ilaahay markay jirto wax waliba quruxsanaadaan ballanna Ilaahay waxa uu ku qaaday qofku marka uu cabsado Ilaahay xaqiisa uu iska eegaya isha Ilaahay uu iska dhisayo inuu faraj siiyo wax kasta waxa uu wada ciriiriga ka hor yimaada iyo caqabada uu ka hor qaada intattaqullaha yaj'al lakum furqana wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wama yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran wa ballan qaadiyo arrinkan u fududeynaya faraj baan siinaya taa macnaheedu waxa weeyaan horumarkiisii ma soo oodmayo waxa kamida wasaa'ilka cadamul ya's wal qunut qofku inaanu quusanin ee ogaado quraanjadaba markay geedka korayso way soo dhacdaa ilaahay natiijo wanaagsan ka gaadho marka dambe ay halkii ay doonayso kor u baxdo marka hadda dambi gasho iyo hadda diiqad gasho iyo hadii duruuf adag kugu timaado mar walba inaanu qofkii naxariista Ilaahay ka quusanin khayrka adduunyaha ka aakhirada qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah quraanku wuxuu ina barayaa inaanay quusto ahayn dhaqanka dadka shahaadanaya islaamka waxa kamid ah waxyaabahaas kathratu tafaa'ul alhasan saadaasha wanaagsan oo sheegaysa qofku inuu Ilaahay malo wanaagsan ka malaynayo wa Ilaahay aad ku xidhantood hoos taagantay subhanahu wa ta'ala mar walba wixii dhaqdhaqaaqa inaad xagga fiican saadaasha ka martaa oo tashaawun baa cagsi u ah baasaysi iyo balaayaysi iyo warwar iyo walaac waxa iska ilaalinaya qof isagoo dabcan asbaabta qaadanaya feejignaanta iyo xadarka asxaabta kamida baa nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam dadku waxyaabaha qaarkood way ka shakiyaan way ka waswaasaan way ka warwaraan marka nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam dalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudannahum hadithki muslim waxa dareen iyo waswaasay naftooda ka helayaan tafaa'ulka wanaagsan ha ka raacaan oo sida khayr kale ha ku fikiraan oo ha u socdaan asbaabta waxa kamid ah idaa najahta fi amrin fa iyyaka wal ghurur marka horumar gaadho waxaad ku hamiyeysaa aad hesho ha isla fagadho dhan awood ha isbidiniyo Itaaliya arrin ana kan qabtay oo ana kan sameeyay inma utiitu ala ilmin indi sidii qaaruun oo kale لكن إلهي يعلي سبحانه وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر سدا صالحين تيران جيرين نبي أنبياء كميدا ولها واي ديراد إلهي ما كنا ينوهر جري إلهي ما وحنا هرمر كنا ينسي تواضع أنا سدا كجرا والنبي ونودر دارمي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا تفتخروا أو يفتخر أحد على أحد إلهي وحي يقول شيء تدي أو يسدول دقوها كبرين وها أفتاقنا إذا انتصرت على الخصوم فلا تشمت وحكم إذا وسائلك تدك واحد نحمران أما الدوديسان أما وحياب اسكو قبطان هداد كقو ليستها كوير سن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إلهي سبحانه وتعالى صبرك يدافد أيو نفري نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو حسي أو لها قفك ولا الكايها كوير سن أما النبات أما الظروف يكون عضو وحلقا يا مالك أنتو لها كقاضين أذيك كوريتيو ومن أسباب النجاح وحكم إذا يختار صديقا صالحا مركدون يسهر ومرك قفك أما أمضى أما قيسك أما عرورته صاحب ونكسن للسمايس الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل نبي طلدا يدر دارن كائن النسية صلى الله عليه وسلم قفك دين تساحيب كيبو هايستا قفك هايسكا قعد والله صاحبيه
iyaaka walxasad waxyaabaha sacaadada iyo najaaxa iyo horumarka kaa lumiya waxaa ka mid ah dadka wuxuu ilaahay siiyey inaad xaasido waxaad qabsan lahaydba wuu kaa mashquulayaa ciil iyo cadhana wuu kugu abuurayaa abi hurayra rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu la hadlayo isagoo ummadoo dhan talada siinaya wuxu uhi yaa abaa hurayra kun warican takun acbad annaas wa kun qanican takun ashkara annaas xalaal miirashada badi dadkaad ugu cibaado badan ayaad uga cibaado badan doonta qanaacadana ogow inaad dadka waxooda sii egeegina wuxuu ilaahay ku siiya aad ku kaaftoontood miyirsatood ku mahadnoqdo dadkaad ugu shukri badan doonta